markaasi mufassiriinta waaweyn oo taabiciinta duriyada ibliis waxa kamida mid la yiraahdo laaqis mid la dhaho ayaa kamid ah waxa kamida mid la yiraahdo walhaan la dhaho laaqiska iyo walhaanku waxay dadka ka fasahaadiyaan dahaarada iyo salaada waxaad arkaysaa dad weyse qaadanaya may weysadii masaxna dhaayay ku cilaaya maanta oo saas ugu cilaaya ama saama wax ka yimaadeen isleeyay weysadii oo dhowran ayuu wuxuu isleeyahay ma waxba ka yimiday shaydaankaas u sheegay waliba maartay waxa weeye walhaanka weeye kan kale antoodna asaguna wuxuu fasaadinayaa salaada markuu qofku garo salaadii ma ku xira salaadii ma niyeysan dadka waarata maanta oo dhan masaajid Allahu akbar ku amba qaar u salli maanta oo dhan daldalay ee waxa weeye ragcadii dhamay laga tagay oo maanta oo dhan uu maartay Allahu akbar taas ku jira masixina uu leeyahay shaydaanka u sheegay hadana ku naqo waa ku laabana waxaas waxa weeye waswasatu shaydaana leeyahay wax cudur daar hay leedana ma jirto qofkaas qof hay shaydaan haysta weeye dad baa ku dhacay waswaasa maartay aan maara isaga waaye waswaas huwa min shaydaan weeye waa inuu waswaaskaas ilaahay ka migan galo oo markaasi waxa weeye shaydaankana waxba uusan ka yeelin haduu shaydaanka markaas waxa uu sheegay oo dhagdhigo oo markaas waligiisa soo ahaanaya markaas uu masaajida looga dukalaya duriyada ibliis waxa kamid midayda muralla dhaho waxa kunayadiisu waxa waaye wasalambura la yiraahdaa midkaas oo murra la yiraahdo asaguna wuxuu ka shaqeeyaa suuqda uu jooga suuqka soo jooga suuqda markii la tago wuxuu siinaynayaa laqwiga hadalka laaqiga dhaarta beenta wallahi badeecadu intaasay ugu fadhida wallahi intaasay ugu fadhida ay dadku daldalayaan waxa gidaay shaydaankan la yiraahdo maartay murra ayaa u sheego waxaas oo u siinaynaay wamadhu sir'a badeecada la amaanayo badeecada berimadii waytan saan way u leey beentisna way wax ka jira male waxa kamida mid la yiraahdo batar la dhaho asaguna masaa'ibta ka shaqeeya masaa'ibta dadka waxa way dadku isku diraya dadku way isdaqraayaan way isdilayaan dadka maalin walba feerka iyo daqarka iyo xabada ku ridaaya dadka la yahay shaydaankan waxa haysta la yiraahdo batar la yiraahdo ay u shaqeeyaan ladmul xuduud dhabanada ay iska garaacayaan jeebabka iska dilaacayaan waa weylaa way sabuura waa halaaki waa hoogay waa baayleen markaas naga markaas gambadaha tuuray marka dadku dhinto amba ooyaayo ambuulada cunaayo mid waxa ku jira la yiraahdo acwar la yiraahdo oo ilayla dhaho asaguna waxa weeye zinada uu siineeyaa kaas shaydaanka dadka zinada u siineeyay ila uu la yahay marka waa afuufaya isaguna ninka farjigiisa oo afuufaya iyo naagta simankeeda oo afuufaya dabadeeda oo afuufaya markaas uu isku kicinaya markaas ninkii naagta isku soo haadaya waxa kamid midayda matrus ayuu dhahay muwaajid kaas isaguna waxa uu ka shaqeeyaa akhbaarta kaadibada wararka been abuurka ah ayuu ka shaqeeyaa kaas wuxuu u badan yahay dadkan wararka iyo waxa tabiyo beenta iyo balaayada sheegay aba fadhi ku dirrada kuwa jooga shaydaankan waxay u shaqeeyaan matrus la yiraahdo ay u shaqeeyaan ayaguna afwaadu afkooda ku tuuraya waxaan sal iyo beer aan lahayn weey waaway aqwaal oo markaasi la yajiduna laha aslan wax raada aan lahayn wadarata suuqa sala suuq ma meel bal isugu taga waxa oda fadhi ku dirra jidadka fadhiye ee wax sheegay waxa waxba ka jira way u shaqeeyaan ayaguna markaasi shaydaankaas ee matrus waxa beenta dadka u sheega kaas weey waxa kamida markaasi mid deeraa daasan asaguna waxa weeye ninku markuu gurigiisa galaamaha weyntu gurigeeda gasho bis ay ka tagaan dhikriga ilaahay waa la gelaa markaas guriga la soo gelaa badarka la cunaya raashinka la cunaya sariirta la jeefanaya saas weey imaam al-Qurtubi waxa uu dhahay waxa la isku khilaafay ibliis kaanu awlaad miyo iska leeyahay mase waa sidee hadda ilaahay baa quraan ku sheegay subhanahu wa ta'ala awlaad iska leeyahay oo sulbigiisa imaam shacbiya la weydiiyay markaas uu dhahay nin ayaa iga su'aalo u dhahay oo waxa uu dhahay ibliis naagma qaba markaas waxaan dhahay uu leeyahay inna dhalika usr lam ashad yaan dhahay uu leeyahay anigu aroos aan xaadirino goob joog ahay waa ibliis meel uu ku aroosay anigu ma aragan dhahay uu leeyahay markaan saas dhahay ka bacdiya ilaahay qowlkiisa xasuustay afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni ayadaasay u soo dhacdo uu markaas waxaan ogaado dhahay macnaha
caruurba haduu leeyahay hada naago qaba markaasaan ka bacdi warkaalay ninkoo sii socdaan ay kaalay waa soo leexdo markaas naago leeyahay caruurna waa qaba mujaahid waxa uu ibliis farjigiisa ayuu wuxuu gelinayaa naag ma qabiyo laakiin mid kasta wuxuu leeyahay farji oo markaas qubul iyo farji uu leeyahay oo labadaas isku haysta markaas waxa weeye mar walba ayagu isdhex gelinaya shan ukumood oo markiiba soo tuuraya duriyadiisa meeshaas ay ka timaada culimada qaar waxay dhaheen fakhidkiisa ama bawdadiisa oo midigta ayaa dakar u yaala bawdada kalentood qubula u yaalo maartay qubulka haweenka u yaala markaas uu labadaas uu isgelinaya markaas markiiba waxa ka soo baxaya 10 ukumood oo markaas waxa weeye oo abaaliisa marka halka ukun xataa waxay sii dhalaysaa 70 shaydaan iyo 70 shaydaanad oo rag iyo dumar marka halkaas uu buulay markaas ay duulayaan midka markaas uu weyn badan oo ibliisku awlaadiisa midka uu jecel yahay waa midka bani aadamka fidnay marka warar badan jiro culimada islaamka ay markaas ay ka hadleen laakiin waxa weeye ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuuna leeyahay afatattakhidunahu ma waxaad ka yeelanaysaan ibliis iyo duriyadiisa awliya xariir min duuni aniga kasoo wal xaal hum ayaguna lakum idinka aduun adaw idihiin bisa lidaalimiinta waxa baasulahu ilaahay badalan waxa weeye ibliis iyo duriyadiisa daacad ay adeeceen